بسم الله الرحمن الرحيم ودكتور عبد الكريم أحمد محمود كنا تخصصي قلينada iyo daweynta cudurrada haweenka waxaynu wadnay barnaamijyo wacyigelin ah oo nuucoodu uu yahay caafimaadka hooyada iyo urjiifka waxaynu ka hadlaynaa sababaha ugu muhiimsan ee loo qalo qof uur leh si loo badbaadiyo hooyada iyo ilmaha sababaha loo qalo hooyooyinka uurka leh waxaa ka mid ah in hooyadani miskaheeda ay yar yihiin in ilmaha uu ku weyn yahay oo miisaankiisa uu aad u weyn yahay 4 kiilo iyo bar ilaa 5 kiilo uu gaari karay sidoo kale waxaa loo qali karayaa hooyada in qalliino hore ay qabtay 1, 2 iyo 3 iyo in ka badan sidoo kale waxaa loo qalaa in ilmaha uu madaxiisa dadbanaado ama uu qalloocnaado ama dabakeen uu noqdo ama in foosha ay ku dheeraato oo ay qaadato wax ka badan 24 saacadood sidoo kale waxaa loo qali karayaa sababo la xiriira ilmaha oo ay ka mid noqon karayaan ilmahaasi in wadna garaaciisa uu ziyaado ama wadna garaaciisa uu yaraado